Xi Jinping waa siyaasi Shiineys ah oo haya xilalka kala ah xogayaha guud ee xisbiga Shuuciga ee CCP iyo madaxa guddiga dhexe ee militariga. sidoo kale waa hogaamiyaha ama madaxweynaha dalka ugu dadka badan caalamka, dhanka dhaqaalahana ah dalka labaad GDP ahaan. haddaba waa kuma ninkan ay majalada Forbes u aqoonsan tahay shakhsiga ugu awoodda badan dadka. waa 67 jir ku dhashay caasimadda dalweynaha Shiinaha ee Beijing, gaar ahaan taariikhdu markii ay ahayd 15 Juun 1953. nolosha yaraantiisii waa mid gaar ah, wuxuuna aabihiis ka qayb ahaa kacdoonkii Shuuciyadda, laakiin ugu dambeyn aabihiis wuxuu ka mid noqday sifeyntii socotay 60meeyadii kadib markii laga dareemay mucaaradnimo, wuxuuna mutay xilligaasi in dhaqan celin loo diro. sidoo kale qoyska Xi Jinping waxay la kulmeen dhibaatooyin dhowr ah iyo dulaysi, waxaana la sheegaa mid ka mid ah gabdhaha la dhashay Xi Jinping in ay isdaldashay. 1966 waa kolka uu curtay kacdoonkii dhaqanka ee Shiinaha, waxaana markaasi hub ka qaateen kumanaan arday ah oo loo yaqaanay ilaaliyaha cas. ardaydan waxay ka jawaabayeen baaq uga yimid Mao Zedong oo ah aasaasaha Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha ee maanta jirta, wuxuuna ardayda ugu baaqay inay difaacaan fikirka anti-wadaagga ee uu dalka ku soo dabaalay sanadkii 1949. baaqa Mao Zedong wuxuu sababay inuu dhaco xasuuq ba'an, sidoo kalena dalka uu galo dagaal sokeeye. markaan Xi Jinping wuxuu ahaa 14 jir, waxaana la xiray iskuuladii ku yaalay magaalada Beijing kadib markii ardaydii loo yaqaanay ilaaliyaha cas ay bilaabeen in ay cadaadiyaan isla markaana xitaa isku dayaan in ay dilaan macallimiinta. xilligan Xi Jinping kaligiis ayuu ku noolaa magaalada Beijing, mana haysan ehel ka difaaca dhaqdhaqaaqii la oran jiray ilaaliyaha cas. waa xilli jidadka magaalada uu ka socday handadaad, dil iyo xarig, wuxuuna Xi Jinping yiri asigoo ka hadlaya qalaasahaasi: waxaan ahaa 14 jir markii ay dhaqdhaqaaqii ilaalaha cas uu weydiiyey ma taqaan dembigaaga inta uu la egyahay. waxaana ugu jawaabay adinka uun ayaa qiyaasi karaa ma gaarsiisan yahay heer la ii daldali karo. waxayna ugu jawaabeen waxaa inaga suurtowda inaan boqolaal jeer ku daldalno, asigoona markaasi ugu jawaabay wax farqi ah uma dhexeeyo boqolaal jeer iyo hal jeer oo ay daldashaan. Xi Jinping markii uu gaaray 15 sano wuxuu ka mid noqday dadkii ay dowladdu u dirtay miyiga fog si ay wax u baraan dadka baadiyaha ku nool, sidoo kalena waxaa laga doonayay inay beeraha ka shaqeeyaan. Xi Jinping halkan wuxuu ka soo helay waayo aragnimo oo uu had iyo jeer alaba xuso, wuxuuna muddo 7 sano ah ku noolaa meel ka durugsan tuulooyinka. sidoo kale wuxuu muddadaasi ku noolaa god koronto iyo isgaarsiin toona lahayn, wuxuuna wax ku akhrisan jiray faynuus. marxaladiisuna waxay ahayd da'yar god ku nool, aabihiis xabsiga loo dhaadhiciyey, qoyskiisiina la handaday ilaa walaashiisa ay isdaldasho. wuxuuna yiri mar uu ka hadlayay noloshan markii ay dhammaatay tijaabadaasi nololeed anigoo ah 22 jir, waxay hadafyadeedu ahaayeen kuwo cad oo ay kalsooni ka buuxdo. kadib markii ay dowladdu ka soo celisay miyiga fog, wuxuu Xi Jinping marar badan isku dayay inuu ka mid noqdo xisbiga anti-wadaagga ee ilaa haatan Shiinaha ka arriminaya, balse codsiyadii uu diray iyo isku dayadii uu ku doonayay inuu xisbiga ugu biiro waa la soo diiday sababo la xiriira aabihiis. ugu dambeynse waxaa la aaminay oo uu ku biiray xisbiga 1974. dardartiisa siyaasadeedna waxay durba ka dhigtay xubin ka mid ah guddiga joogtada ah ee xafiiska siyaasadda ee xisbiga. wuxuu halkaasi ka soo fuulay salaanka siyaasad, xilal kala duwan oo uu soo qabtayna ugu dambeyn wuxuu 2012 noqday xogayaha guud ee xisbiga Shuuciga Chinese Communist Party, waxaana taasi u xigtay 14 Maaj 2013 oo ah kolka uu la wareegay xafiiska, noqdayna madaxweynaha dalka ugu dadka badan caalamka. haddaba muddo xileedkiisu goorma ayuu ku egyahay? gebi ahaanba iska ilow sheekada. Xi Jinping waxaa u suurta gashay sanadkii 2018 in ay baarlamaanka dalkiisu u ansixiyaan inuu xilka hayn karo inta ka dhiman noloshiisa. 2013 oo ah marka uu sida rasmiga ah xilka ula wareegay, waxaa xigay sanadkii 2017 oo haddana dib loo doortay. ka horse 2018 wuxuu xaq u lahaa in la doorto 2 jeer oo keliya, balse haatan wuxuu xaq u leeyahay inuu xilka hayo inta noloshiisa ka dhiman. waxayna tani ka dhigtay in lagu tilmaamo ama xitaa la gaarsiiyo darajadii aabbaha Shiinaha ee Mao Zedong. tan iyo markii uu xafiiska la wareegay, dhaqaalaha dalka waa uu kobcay, wuxuuna 25 bishii labaad ee sanadkan sheegay in la sameeyay mucjiso lana cirib tiray saboolnimada.
dalka arrinkan shaacinayana waa Shiinaha oo ah halka uu ka dilaacay cudurka ilaa maanta dunidu ku foogan tahay. waxaa lagu eedeeyaa inuu kordhiyay xirxirnaantii iyo faafreebkii badnaa ee dalka ka jiray. sidoo kale waxaa taariikhdiisa mugdiga ah ka mid ah ololaha isirsifeynta ah ee ka dhanka ah dadka muslimiinta ah ee Turkistaanta bari. xilligii uu socday kacdoonkii dhaqanka Xi Jinping, safarkiisii waxbarasho hakad ayuu galay. si walba ay ahaatase wuxuu jaamacadda Zhejiang ka bartay chemical engineering, wuxuuna shahaadada PhD-da ka haystaa dhanka sharciga. waana madaxweynaha kaliya ee haysta shahaadada PhD-da marka la eego hogaamiyaashii soo maray Shiinaha. xaaskiisa waxaa lagu magacaabaa Bang Liyuan, waana fanaanad ka caan ah guud ahaan Shiinaha. wuxuuna Xi Jinping madaxdii hore ee Shiinaha kaga duwan yahay sida uu u soo bandhigo xaaskiisa marka la joogo dhanka warbaahinta. inta la ogyahayna wuxuu dhalay hal gabar. gabadha uu dhalay xogta kaliya ee laga hayo waa inay wax ku soo baratay jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka.